dad jiro oo Soomaaliyeed oo haddaba jira nabadaysan barwaaqaysanatiin Soomaali inteeda kalena colaad idin ma qabto wax kasta oo na dhaxmaray oo hore oo dhacay xanuun kasta oo hore la dhaafay wax kasta oo tabasho ah oo jirtay ma goyso dhulka qaar ka mid ah bixinayna in la yiraahdo marna ee aqoonsiyaan ka dalbanayna ma goyso waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed oo waqooyiga Soomaaliya degan inaan xusuusiyo taariikhda Itoobiya iyo Eritrea ay ku midoobeen iyo markii daba meesha ay tagtay inta dadka Eritrea ay ku qaadatay midowgii Itoobiya ay la midoobeen iyo ogolaanshii Itoobiya ay ogolaadeen meesha ay ku dhamaatay iyo intay ku qaadatay wada la sahmiya meeshaas naga ma jirto dawladda Itoobiya waxaan leeyahay dadka reer Itoobiya mar walba darisaan ahayn ismaanaan dooran ilaaha daris naga dhigay waanan ahaan doonaa hal option aan qabnaa nabad inaan ku wada noolaanaan qabnaa option kale noo furan ma laha ayadoo duruufaha maanta geeska Afrika ka taagan ee cimilada isbedeshay climate change uu keenay dadkanagu ay la tacaalayaan ayada oo maanta la og yahay argagixisada geeska Afrika ka jirta dadkanagu inay la tacaalayaan ayadoo la og yahay badda cas ee hadda la hadalaya xaaladeedu sida ay tahay oo cadawiyada faraha badan maanta ay geeygan geeska Afrika ay ka jiraan in yaro shidaala lagu sii shubay sax ma ah Soomaaliya Itoobiya macaamilkeedii sanadihii dambe Prime Minister Abiy Ahmed waxaan leeyahay faragelintii Mala Zanaawi markuu Itoobiya madaxda ka Soomaaliya uu ku sameeyay Al-Shabaab ka dhashay shabaab ka hor ma joogin dalkan maanta oo aan shabaabka ka adkaanay oo baabi'intoodii ay joogno oo ay madaxdoodii mas'uuliyiintoodii isu soo dhiibayaan oo dhulkii in badan oo kamida aan ka hayn inta kale aan ku sii socono fursad kale in loo abuuro shabaabku ay soo istaaga xalaya ugu dambeysay degdegsiyo waad maqlayseen shabaabku waxay ku hadlayeen cali dheer xal wuxuu ku hadlay waa maqlayseen fursad kale iyo slogan kale oo dhalinyaradeenna ama nationalists ha ahaadaan ama wadaadaha ahaadaan si uu u fogaaday lagu soo recruit gareeyay shabaabku ay ku helaan dhalinyaro badan oo ay soo xereystaan oo ciidan u noqoto ayadoo maanta dhalinyarada ay ka soo wada tagayso arintan waa arin kale oo fursad kale abuurayso waay nama qabato Soomaali haddaan nahay meel kasto aan joogno gobolka geeska Afrikana ma qabato gobolkan hadduu la tacaalaya oo meel kasto colaadi ka hursan tahay Soomaaliya xidig soo iftiintay oo gobolka geeska Afrika ka soo dhax iftiintay oo nabad iyo maxaa kale deganaanshiyo u sii socota ayay ahayd waa ka xunnahay in ay arintaani soo dhacdo xilli ay sidaas ay muxuu ahaay arinta ahayd oo shabaab oo sii dhimanayana aan tallaabooyinka aan qaadaynahay ay dhiig ku shubaan aad iyo aad ayaan uga xunnahay dadka reer Soomaaliland ee walaalaha ah mar kale waxaan leeyahay walaalayaal colaad iyo dhibaato idinka soo jirta halkan waxa idinka soo jiraahay waa walaalo walaaluhuna waxa la yiraahdaa amal walaal ama carada walaalka gasha amankay gashaha la yiri arabkaana looga bixiyaa macnaheedu waxay tahay walaalka hadii uu ka caroodo hadee waa walaalka xagee tagaya bariyo is gooni yeelaya laakiin marka dambe aad la hadasho arabka looga bixiyaa macnaheedu waxa waa la wada hadlaa wada hadalkiyaan ogoleyn wanaagan ogoleyn waligeen isku madayin gobnimada Soomaaliya sovereignty-ga dalka Soomaaliya ee dawladda federaalka ah iyo golayaasheedan ay mas'uulka ka yihiin in lagu cadaadiyo wax loogu dhimo maxaan ku iraadahay lagu waxay Somaliland weligan kamaanaan shaqeyn haday colaadi ka dhaxdhacda dhaxdoodana mar walba hadalkeenu wuxuu ahay hal la dago hal la dejiyo hal la heshiyo oo hal la nabadoobo waan ka shaqeynay
وانا كشقينينا ولنا وكسي شقين دونا كعاجز مين هدي أليرا لكن دلكو waxaan rabaa dalka annagu ma lihin annaga maanta joogna ee talada joogna mustawa kasta talada aan ku joognay dhulka annaga ma lihin sifa aan awood iyo aan u leenahay inaan bixinana ma jirto awood sharciyeed iyo awood damiir iyo dadnimo oo na siinaysa dhulkeenna qaar inaan bixinna ma jirto dhulka waxaa iskale generationska soo socda ee qarniyaasha soo socda Soomaalida ee jiri doon ayaa iskale geyiga sidaa daradeed waxaan annagu lahayn awood u maleeyin inaan bixino wada noolaansho iskaashi dhaqaale waa wax aan raadinayno oon suuqa bariga Afrika aan uga mid noqonay oon muxuu ahaayo Horn Economic Integration Initiative ka la yiraahdo aan u wadno wax uga shaqaynaynay gobolkaana inuu wada barwaaqoobo oo maxaan ku iraadaayo wada nabadooban ka raadinayna ka shaqaynayn kamaanaan shaqaynayn inaan gobolkaas weynaan jiriyo hayna Soomaaliya dhexdeeda inaan cunfi colaad ku soo ceelma rabno walaalayaal shalayna waa naga go'nayd maantana wili waa naga go'an tahay taako dhulka Soomaaliya kamid ah inay baxda ma ogolin sifa aan ku bixi karnana ma lihin andagu sidaan horeyba ummadda Soomaaliyeed uga ballan qaaday haddaan madaxweyne ahay iyo haddaanan ahaynba taaka dhulka Soomaaliya kamid ah inay baxdo waa ku celinayaa taaka dhulka Soomaaliya inay baxda ma ogolin aan isku kaashanno dalkanaga inaan difaacano aan isku kaashanno inaan ilaalino geyigeenna wada jirkiisa Soomaaliya ayadoo intaan ka taag daran ayaan ay soo ilaashatay dhulkeeda caalamkana waa uga mahad celinaynaa nagu kaalmeeyay inaan dhulka ilaashano maanta waa ka taagroonahay intii hore hadday tahay xag dowladnimo hadday tahay hay'ado dowladeed iyo hadday tahay diblomaasiyadda muruqa diblomaasiyadda aan leenahay hadday tahay intii hore waa ka taagroonahay waxaan mar kale baaq u jeedinayaa dowladda Ethiopia wax badan oo wanaagana way naga soo dhaxeeyeen wax badan oo wanaagana way noo madlanaayeen jihadaas aad bisha 1 January u jeesateen ka soo jeestaan lana wado idinka